qofku hadduu dhaqaale kaa fiican yahay wax walba miyuu kaa fiican yahay hadduu aqoonta maadigaa kaa badiyo miyuu kaa badiyaa nolosha kale miyuu moodalka yahay bini aadamku uu ku daydo caalamkaynu maanta joogno waa caalam la yidhaahdo cuquusha waa la weeraraa caqliga bini aadamka waa la weeraraa si wixii la rabo looga dhaadhiciyo wuxuu amaha xumaado amaha fiicnaado waa in cidi uun danka leedahay misaal basiidaan idin siinaya maalan augustii dhoweyd 11keedii anigoo toronto jooga ayaan tv shiday CNN baa ka soo baxay CNN markaa nin baa la waraysanayaa ninka la waraysanaya wuxuu leeyahay qaanuun baan raadinayaa in la sameeyo adduunku gaar ahaan United Statesku Maraykanku inuu ictiraafo maalinta nigiska buu leeyahay nigiska soo ma taqaaniin underwearka buu maalin rabaa in la siiyo waa kuwan maalinta AIDSka maalinta waxa maalinta soo ma maqashaan wuxuu rabaa maalintii nigiska in la sameeyo signatures buu ururinayaa 50,000 buu marinayaa 50,000 oo signature buu marinayaa saxiix ayuu soo ururiyay wuxuu rabaa inuu badiyo saxiixyadaasoo 1 milyan gaadhsiiyo si uu kaysku u noqon karo kays isturtiingahoodii yani kongareska la hordhigi karo oo markaasi looga doodo maalinta nigiska waxay weydiiyeen maalinta nigiska maxaa laga faa'iidayaa bay yidhaahdeen wuxuu yidhi markii aan daraasayey waxaan arkay buu yidhi suuq dhaqaaloo fiican inuu ku jiro waxaan dareemay buu yidhi nigsaanta lagu xidho maraykankaan xisaabiyey waa $13 bilyan baa ku baxa buu yidhi haddaan maalinta nigiska sii sameeyo buu leeyahay markaa waxay noqonaysaa waa market aad u cajiiba markaa marketkaasaan rabaa inaan qabsado buu leeyahay si uu marketka u qabsado ayuu ummadda dhan wuxuu rabaa inuu u sameeyo maalintii nigiska maxaan markaa maalinta nigiska tusaale ugu soo qaatay yani waxa weeyaan waxaan laynoo sheegaya tirada badan leh nolosha macna kama leh inagunbaa wax waynu aragnay waxa magac lagu tiriyey waxaa laga yaabaa maanta haddii aan idin weydiiyo nebi muxamed mise carruuruu dhalay inay adkaan doonto cidda si fiican uga jawaabi doon laakiin haddaan idin weydiiyo David Beckham imisuu dhalay waa la wada garan karaa waayo Beckham iyo Maradona iyo kan iyo hebelada tani waa laynoo buunbuuniyey dabeetana wax weyn oo cajaba baa laga dhigay laakiin really haddaad caqli fiican ku eegto maxay qabtaan caag baa loo neefeeyaa dabeetana eriya la yidhaahdaa 2 birood dhex geliya soo intaa maaha intaasi nolosha bini aadamka maxay ku kordhisaa caag haddii la neefeeyo oo dabeetana 2 birood laga dhex saaro waxba kuma kordhiso laakiin waxaa loogu talagalay in qaabkan laynoo fakarsiiyo waxaa la yidhi ninka kani caaggaa la neefeeye 2 birood la dhexeeyo $40 milyan oo dhaale ku qaataa $40 million ayuu ku qaataa waxaa jira Western Europe dhalinyarada waxaa loogu talagalay in la mashquuliyo qofku markuu dhalinyaro yahay in la mashquuliyo qaab waxbarasho dheer in la geliyo 12 sannadooda oo asliyan ku salaysan in da'da intuu ka yariyo qofka si loo hayn karo aanu suuqa shaqada iyo waxa si u soo gelin mar labaad in qofkan la mashquuliyo oo laga mashquuliyo qadaayaadka bulshada mesela Yurub lixdanada wixii ka horeeyay dhalinyaradu khatar bay ku hayeen siyaasadka Yurub waxa bedeli jiray lixdanadii wixii ka horeeyay ardada jaamacaadka ku jira France oo kale 1968kii ardadii jaamacaadku inqilaabadii waxay sameeyeen waxay qarka u gaadhay in mar laba thawra Faransiya dib loo inqilaabo waxay ahaan jireen shuuciyiintii hore dhulkii ugu tirada badnaa ee ka faa'iideysteen dhalinyaro joogay jaamacaadka iyo wixii ka hooseeyay laakiin dadkaasi si suuqa siyaasadda looga saaro waxa loo fakiray suuq cusub in loo sameeyo
sport and music baa la geliyey qofka dhalinyarada waxa la yiraahdo caalamkan siyaasadani waxan ka bax caalam kale aad ugu leedahay caalamka aad leedahay waa maxay ama waa music damdamta dhageyso iyo dadka qaylinaya oo waliba waxay ku qaylinayaan xataa aanu jirin literature-ka hadii la eego dadkan qaylinaya oo dhamay cabaadaya wax ay ku hadlayaan ma jiro waa uun iska cabaad lagu daray music lagu daray iyo kuwa la yiri kubadda area kubaddu waxa laga yaabaa inaad isleedahay war Mustafa maanta ma sportigu doonayo inuu wax ka sheego ama uu caabayo qofka bini aadamka ah inuu jirkiisa kala bixiyo oo dhisawa wax fiican caafimaadkiisa inuu ka shaqeeyo waa wax fiican waagay kubaddu wax caafimaad uu loo adeegsada ahayd hobby bay ahayd hobbyga maxaa la yiraahdaa qofku shaqo haystay waxana hobby ahaan buu sameyn jiray ma jirin nin yiraahdaan kubad baan ka shaqeeyayo intaan soo kalaho lacag lagu siiyaa ma jirin qofku shaqo kale uu kalihi jiray dhakhtar buu ahaa askari buu ahaa booliis buu ahaa siyaasi buu ahaa shaqo kale uu haystay kubadna waa ciyaari jiray kubaddu markaa waxa iska ahayd nooc entertainment yar oo fudud iyo inta ugu badan la wuxuu qofka bini aadamka isku dayo jirkiisa inuu ku kala bixiyo laakiin ka waa laga saaro waxa la geeyo suuqii dhaqaalaha waxa laga dhigay shirkadka ugu waaweyn ee maalqabeena waxa laga dhigay inamadan yaryar ka dhex boodbooda in mid waliba 40 milyan qaato waxa laga dhigay in dadkoo dhan usbuuc dhan dunida oo dhamay TV-yada hor fadhida la yiraahdo koobkii dunida la ciyaaraya koobka dunida muxuu yahay usbuuc kale in la hor fadhiyo la yiraahdo koobkii Yurub la ciyaaraya dadkii oo dhan kooba bay daawanayaan waayo waa model isu loo sameeyo la rabo dadku inay noocan ugu daydaan waxa laga yaabaa adigu maanta inaad adneys weydiinin subaxii markay iskuulka isugu timaadaan waxa tiraadaan xalay yaa badiyay liiga ka sareeya toddobaadkan Manchester United baa ugu sareysa iyaba lagu muransay Real Madrid baa wada maxaa waxan keenay waxa weeyaan iyada ay luntay huwiyadii ama identity-gi qofku waxaynu u baahanay inagu inaan isweydiino identity-ga kumaatay man ana inaad marka hore isweydiiso kumaanahay maxaan u noolahay maxaan rabaa inaan dunidan ka qabto maxaan u joogaa haddaad taa garato waxaad garanaysaa yaad ku dayanaysaa markaa yaa model ku ah yaa tusaale ku ah oo aad ku dayanaysaa waxaynu u baahanay inaynu garanno inaad tahay qof muslima oo ilaahay rumeeyay subxaanahu wa ta'ala waxaad garanaysaa noloshu inaad waqti yar joogayso waqtiga yar aad joogtaan inuu yahay waqti lagu itixaamayo lagu talagalay inaad ka faa'iideysato waxaad ogtahay in aad dhiman doonto dabeetana lagu soo bixinayo aakhira la imanayo waqtiga yar aad joogtay wixii aad qabatay in lagu xisaabin doono yaa model ku ah markaa yaa tusaale ku ah ilaahay baa quraanka inoogu tilmaamaya cidda tusaale inoo ah ilaahay subxaanahu wa ta'ala intuu anbiyada ka soo waramay buu wuxuu leeyahay ulaa'ika alladhiina hada Allah fabihudahu muqtadih kuwaasi baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa ta'ala waa kuwii alla hanuuniyey fabihudahu muqtadih hanuunkooda ku daya baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa ta'ala hanuunkooda yani suluugooda dhaqankooda qaabkay u fakarayeen qaabkay u cibaadaysanayeen qaabkay nolosha u arkayeen siday u fakarayeen iyaga kaga dayda baa ilaahay yiri ilaahay qur'aan wuu soo dejin kari lahaa sidiisa u qoran oo dadka la yiraahdo akhristo faahfaahsan laakiin ilaahay wuxuu soo diray waxyi kasto uu soo dejiyay rasuul baa la soo raaciyay rasuushu maxay qabanayeen waxay qabanayeen inay noqdaan tusaalaha xayiga tusaalaha nool ee loogu talagalay bini aadamku inuu ku daydo si uu u raaco waxay ahayn tusaale la rabo in dadka la tusiyo koow waxa la faray inuu yahay wax la samayn karo fi maqduuri albashar bini aadamka awoodiisa wax ka mid ah inuu yahay inuu dariiqa saxa yahay qaab nololeedka ugu fiican inuu yahay cidii tilmaami lahay ولذلك waxaaynu ku celcelinayna leenay waa inaynu si fiican u daraasayna u garanaa cidaynu ku dayan lahayn cidaynu ku dayanayna waxa weeyaan bini aadamkii ilaahay abuuray oo dhan kuwii ugu fiicnaa waxa alla dad abuuray
waxa ugu fiicanoo ummad walba kii ugu fiicnaaya ilaahay ka doortay waa nebi ama rasuul. ummad kasti kii ugu fiicnaa ee ilaahay ka doortay waa nebi ama waa rasuul. nebiga iyo rasuulka waxaa loogu talagalay inuu model u noqdo ama shaygii bini aadamka oo dhammi uu ku dayanaya inuu noqdo. waxaan ku dayanaynaa min bacdi daalik kuwa iyagu rabeeyeen oo kobciyeen. haddaad fikraddaasi qaadato waxa aad dareemaysaa inaad adigu dunida ustaad markaasi u tahay. qofkaan ilaahay garanaynin waa wax ma garato. qofkaan ilaahay garanayn subxaana wa tacaala waa wax ma garato. afaman yaclamu annama unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acma. cidda alle garanaysa maalan aqoontu maxaa lagu qiimeeyaa? aqoonta waxay ka warramayso iyo waxay tarto socaynkaa maaha. inta ugu badan le dadku aqoonta aqoonnimo uma bartaan, laakiin marketka waxay ka goysaa loo bartaa. haddii iminka laydin yidhaahdo combyuter science baa markaad ka soo baxdo lagugu qaadanayaa 30,000 40,000 oo karawne bishii wada combyuter science baynu gelaynaa. laakiin hadduu marketku isbedelo laydhaha saxaafadaa ka qaalisan, saxaafadaad u guuraysaa. saxaafadnimadu iyo kombyuuternimadu ma ahayn fiicnaanta, laakiin marketka waxay ka jaraysay baa ahaa. aqoonta alle la bartaa marketka waxay ka goynaysa iyadaa ugu qaalisan oo ay jannay goysaa. yacni life sbankaaga markaad eegto nolosha intaad noolaanaysaa atwaar baad soo maraysaa. wakhti aad dhabarka aabbaha iyo hooyadaa ku jirtay, wakhti aad caloosha hooyadaa ku jirtay, wakhti aad dunida korkeeda sarrayd, wakhti aad xabaal ku jirtay, kadibna waad ka soo baxaysaa. waxaad ku dambaynaysaa janno ama naar. noloshaasoo dhan marka la isku daro diintu intay ka tartaa, inta ugu qaalisan bay ka tartaa. hadday tahay noloshanaad ku nooshahay si sawiyo toosan inaad u noolaato iyadaa tilmaamta. hadday taa aakhiro tahayna waxa ugu qaalisan iyadaa keenta. daatada ay ka warramaysaa maalan inaad cilmi quraanjo barato, quraanjada cilmi ku saabsan, iyo inaad cilmi bini aadam ku saabsan barato waxa qaalisan cilmi bini aadam ku saabsan. waxaa kaloo la mida cilmi allihii dunida abuurayba ku saabsan inaad barataa wuxuu ka qaalisan yahay makhluuqaadka cilmiga ku saabsan. sida daraaddeed waxaynu u baahannahay inaydan isu arag minority yaryaroo masaakiina oo dadkii kale uu ka sarreeyo oo markaa la khajila. waxaan kaaga digayaa inaad xijaabka la khajisho ama salaadaad la dhuumato markaad iskuulka sidaada ku tuko waxaad sileedahay talow xaggaad ku tukataa. markaasaa laga yaabaa inaad wareegto mid yidhaaha musqusha agteeda aan ku tukanno, jaranjarrada hoosteeda aan ku tukanno. meel aan ili kaa qaban baad daydayaysaa. sababtu waa maxay? waxan baad la khajilaysaa kula yeeliita. waxay ahayd inaad rumaysato adigu inaad the right way taagantay, safkii sax ahaa inaad taagantay, iyaguna kii qaldana inay taagan yihiin. inaad isu dhigto inaad model noqoto dadka inta kale ay ku dayato. ma ahayn inuu iskuulka model ka noqdo inanta timaha kala jeexda ee naasaha qaawisa ee marada yara gaaban seeta. waxay taasi qof laga yaqyaqsoodo inay noqoto. inaad adigu maradaada iyo asturkaaga tusiso inaad tahay the right person, dhaqan ahaan, aqoon ahaan, waxa la baranayo, wax kastaba inaad adigu tahay the right person. idan ku dayashadu waxay ka bilaabmaysaa inaan marka hore inhizaam nafsi inugu dhicin, inaynan jabin inferiority complex inaad marka hore adigu qaadin, cuqdad nafsi inaanay kugu dhacin oo aanad sodhan. xijaabka waxaa laga yaabaa markaad masaajidka imanaysana inaad jiqiska soo siiso. iskuulka markaad tegaysana mid la yara modify gareeyo, dhanna surwaalka yara ah, dhanna funaanad yar ka ah, meelahana aad masar yar ku duubto. waa modification. xijaab aad modify garaysay maya ha modify garaynin. siduu ugu wenye u qaado aragna you are the superior, adaa ugu sarreeya dadka, waayo ariiqii ilaahay jeexay baa taagantay, the right way baa taagantay. miaal basiitaan ku siinaya. saxaabadii nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi duniday furteen. lisboonadan iyo viyaana iyo belgrad iyo mooska iyo dhulkan oo dhan dacladeeday wada yimaadeen muslimiintu, ilaa iyo laga gaadhayo jina iyo indonesiya iyo waxa la mida. dhulal badanoo dhulalkaa ka mida kumay furanin dagaal. dhulal badanoo ka mida waxay ku furteen dhaqan iyo akhlaaq iyo dadnimo iyo macaamil bay kula furteen. waxay ku furteen qaabkay u noolaayeen iyo siday u fakerayeen iyo waxay basharka u keeneen.
waxay ku furteen oo kaaga filan rustam markii ay dagaalamayeen muslimiintii iyo saxaabadii. rustam oo ah janankii hogaaminayay ciidamadii bershiya eeraan ciidamadeedii ayaa waxaa la isku galay qaadisiya meel ku taalla haatan waddankan ciraaq loo yaqaano. waa intaan madaa'inna ciraaq bay ka tirsantaa rajaynaya la furanin. waxa ay dagaalkii markuu muddo socday codsadeen nimankii gaaleed bal muslimiintu inay cid soo diraan ha la wada hadlee. sacd ibnu waqaas saxaabigii la odhan jiray wuxuu u diray saxaabi la ydhaha ribciy ibnu caamir. ribci waxa loo diray inuu wada hadal la soo sameeyo janankii ama boqorkii watay ciidamada gaaleed. dabeetana wuxuu u yimi isagoo faraskiisii yaraa wata oo hubkiisii xidhan ayuu meeshii yimi. boqorku wuxuu ku talagalay ninka kan inuu nafsad ahaan jabiyo. dabeetana waxaa la dhigay red kaarbedka wada taqaanay soo maaha? madaxdu markay dawladda ka soo degayso kacase la dhigo soo ma taqaaniin ee ay soo dul socdaan. red kaarbetiskaasaa meel walba la dhigay. dabeetana sariir buu boqorkii dhigtay wada dahab iyo waxaasi ka samaysan si uu halkaa ugu qaabilo ninkan muslimiinta u imanaya. ninka muslimkii waa nin dagaal ka soo baxay, faras yar iska wata oo 4-5 bilood dagaal ku soo jiray oo rafaad baa dee ka muuqda nin dagaalansan. wuu soo socday, waxay yidhaahdeen boqorka looma tago adigoo hubka sitee hubka dhig. wuxuu ku yidhi anigu idiinma imana idinkaa ii yeedhay, hubkayga ma dhigaya anigoo waxayga sita haddaad rabtaan inaan u tago waa u tegaya, haddii kalena waa iska noqonaya. boqorkii baa loo tego waxaa la yidhi boqorow ninkii wuxuu diiday inuu hubka dhigo. yani waa aragteenoo dee madaxda hub loolama galo, waayo dadka kanima haddad ilaahay aaminsan oo iskhiyaamaynayaan. laakiin ninka muslimka ay qowlkiisu ku dhaqmaa. saasi daraaddeed intuu qowl sameeyo qadri kama dambaysiyo, waxma khiyaameeya. haddana wuxuu yidhi hubkayga dhigi maayo anigoo hubkayga sita, haddii loo baahan yahy waan u tegaya boqorka. waxaa la yidhi boqorow ninkii hubkii diid inuu dhigo soo daayaa la yidhi maca hubkiisa. faraskiisii yaraa buu soo dul eriyey baa la yidhi qadiifadihii red kaarbedka ahaa. boqorka agtiisa markuu marayay baa la yidhi intuu faraskii ka daadegay ayuu barkimooyinkii waaweynaa meesha la dhigu mid ku xidhay bay yidhahdaan culamada taariikh. mid ka mid ah barkimo hogaankii yaraa ee faraska ugu xidhay. dabeetana wuxuu yimi boqorkii markaa su-aal buu weydiiyey, maxaa idin soo saaraya? wuxuu ka fakerayaa dadkan ma gaaja waddankoodii ka keentay, ma waxan baa keenay? haddii markaa ay tahay gaajo iyo baahi uun waxan wadaa dee waxbaa la ydin siinaya, iska noqda baa la rabaa in la yidhaahdo. maxaa idin soo saaray baa la yidhi. wuxuu ugu jawaabay markaasi, ilaahay baa na soo bixiyey, waxaana naloo soo bixiyey inaannu dadka ka saarro dulmiga diimaho aannu u saarno cadaaladda islaamka, inaannu ka saarno cidhiidhiga adduun waannu u saarno ballaadhkeeda. isagaa cidhiidhi dad ka saaraya, min dayqi dunya ilaa sicatiha. cidhiidhi adduun buu ka saarayaa, ballaadh buu geynayaa. ninka kani muxuu rumaysan yihi? meeshaan uga socda baytulqasiidku waxa weeyaan, ninkani wuxuu rumaysnaa inuu isagu yahay ustaadkii dunida loo soo diray, brofesorkii loogu talagalay inuu caalamka wax baro. muxuu barayaa? wuxuu barayaa waxyu samaa, warkii alluu sidaa. ninka ilaahay warkiisa sidaana cid kasta isagaa ka aqoon badan, waayo wuxuu sidaa aqoontii ugu sarraysay. sidaa awgeed buu wuxuu u soo bandhigayaa isagoo kalsooni qaba ayuu wixii uu rumaysnaa soo bandhigaya. adigana waxaa laga yaabaa adigoo muslima oo islaamnimo rumaysan oo caynkan inaad la dhuumato, inaad isku daydo inaan dadku ku ogaanin inaad muslim tahay. waa wax faal xun. waxaan leenahay marka waa inaad garataa shakhsiyaddaada kumaa tahay, waa inaad garataa. adigu muslim baad tahay, kuwa kalena waa gaalo. taa macnaheedu waxa weeyaan adigaa ku taagan dariiqii saxa ahaa, iyana waxay taagan yihiin dariiqii qaldanaa. taa macnaheedu waxa weeyaan adaa macallinkii la rabay inuu dadka wax u sheego wax tilmaamo, iyana waa ardadii la rabay inay wax bartaan. taa macnaheedu waxa weeyaan adaa marada aad sidataa maradii loogu talagalay inay bashariyadu ku dayato. adaa moodhalkii la rabay in la buunbuuniyo, iyaguna way qaawan yihiin. waa meel laga naxaabay joogaan, waa hilib wadhan
meel aad looga naxaabay joogaan saa daraaddeed aday ahayd inaad isu dareento inaad tahay qudwadii ama ciddii bashariyada hogaaminaysay horkacaysay ee dariiqa sawaabka ah rabtay inay gaadhsiiso waxaa aad u foolxun markaa qofkii halkaa laga rabay inuu isagu intuu cuqdad qaado uu dambeeyo inuu isagu noqdo qof ka cabsada wixiisii inuu soo bandhigo bilaahi calaykum waxaan idin weydiinayaa haddii inanta isqaawisaa isqaawin ku faanaysa adigu maxaad mare ugu faani kari weyde yacni say macquul u tahy hadduu kani gaalnimo ku faanayo ilaahay ma rumaysnay ilaahay baan rumaysanay si aad ugu faani kari weydaa ahlu naar baan ahay hadduu kuugu faanayo ahlu jannaan ahay si aad ugu faani kari weyda geedi naar ku sii guuraya inaad daba guurtaa miyay fiicantahay adoo janno arkaya geedi naareed dadaad aragto hayaana oo guuraya oo naar u sii raran inaad ka daba guurtaa miyay fiicantahay adigoo awoodi karaya inaad janno u guurto waxaan kelmaddeeda ku soo koobaya waxa weeyaan laba hal baa laydinka baahan yahay inaad garato waxaad tahay iyo waxaad rumaysantay oo ah inaad garato inaad muslim tahay muslimnimada macnaheeduna inuu yahay qof raacay risaaladii ama hanuunkii ugu dambeeyey ilaahay xaggiisa ka yimaada ama hanuunkii nebiyaba loo soo dhibay dhammaantii qof haysta inaad garato markaa inay adiga dushaada saarantay dunidan inaad badbaadiso inaad garato inaad adigu markaa dunida modal u noqoto inaad hoggaankii lagu dayan lahaa inaad noqoto inaad u fahamto dadka kani maxaad ka qaadan kartaa maxaanad se ka qaadan karin mas'aladaasaan dib ugu noqonayaa qofka muslimka ee modalka ahi dariiqa aakhiro loo maro isagaa haya adduunka ka loo marana isagaa haya laakiin aqoonta maadigaee kale ee ka timaadda bashariyada ama bini'aadamka taariikh nololeedkiisii soo jireenka ahaa wixii ka ururay ee cilmiya maalan ama biology ha noqdo ama chemistry ha noqdo ama kombyutar ha noqdo waa wax bini'aadamku uu kala dhaxlay oo ka soo ururay taas cidi kaama xigto qofka muslimkii meeshuu ka helaba isagaa xaqu leh waad ka qaadanaysaa idan brofesorka ama macallinku waxa ku saabsiisan culuumta la baranayo waad ka qaadan ee waxtarka leh ama waxa ku saabsiisan dhaqanka kaljarka diinta aragtida nolosha saa nolosha loo qiimaynayo viewgaad nolosha ka yeelanayso adiga macallin inaad u noqoto lagaaga baahaya waayo adaa tii saxa ahayd haya marka adaan lagaaga baahaya inaad dunida macallin ka noqotid laakiin ceebteenni waxa weeyaan teenniina garanba mayno taynu rabnay inaynu macallin ku noqonno inaan garanaynin taasaa waxay keentay inaad noqoto weel madhan oo wixii lagu shubaba qaadan kara waxaan ku soo koobayaa rusushu ama nebiyadu waa tusaalayaashii dhabka ahaa ee loogu talagalay qofka bini'aadamkii nolosha dhammaanteed inuu kaga daydo hadday qiyaadiya maamul tahay qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa rusul madax iyo siyaasiyiin noqotay nebi daawuud nebi sulaymaan waxay ahayd rusul siyaasiyiina oo madaxa oo ummad hogaamisoo dowlada xukuntay hadday tahay jihaad iyo dagaalan iyo kan qur-aanku wuxuu ka warramayaa rusul hadday tahay waxay iminka kuu sheegayaane xornimo la raadiyo iyo dad la xoreeyo ummad xuquuqdeeda loo raadiyo rusul baa ilaahay qur-aanka kaga warramaya raadinaysay nebi muuse waxaa ilaahay ka warramaya wuxuu ka hor yimi fircawn oo dad kale dictatornimo u sheeganaya le anaa rabbi idiin ah ilaahayna uu soo diray inuu reer banu israa'iil ka xoreeyo an irsil maciya bani israa'iil haddaad u baahan tahay qof dhibaatoobay oo mashkilada haysato iyo si uu noolan laha ilaahay rusul buu tusaale ka dhigay nebi ayuub baa la tilmaamay oo 18 sano jiifay oo xanuunsanayay oo dhib badani heshay haddaad cidhiidhi iyo mashkiladii cid ay qabsatay iyo qaabka loo noolaaday rusul baa ilaahay tilmaamaya nebi yuunus oo xuutadi liqday
oo kalluun calooshii ku galay oo haddana ka soo baxay oo ilaahay subxaana wa tacaala u gargaaray. haddaad rabto cid dagaalyahanoo ummaddoodii u dagaalantay oo xoraysay, rusul baa ilaahay ka warramaya. nebi daawuud oo jaaluut la dagaalamay oo ummadda dhan ka xoreeyey niman gaalo ahaa. yacni nolosha dhan kastoo aad ka eegto waxaad helaysaa rasuul ah kii lagu dayanayay. nolosha dhan kastoo aad ka eegto waxaad helaysaa rasuul ah ilaahay qur-aanka uu kaga warramayo oo ah ciddii lagu dayanayay ee nolosha tan hogaamisay. sidaa awgeed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala nebi moxamed wuxuu gaar inoogu sii tilmaamaya laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju allah walyowma alaakhir wadakara allaha kaiira. nebi maxamed waxaa idinku sugan baa ilaahay leeya ku dayasho fiican ciddii alle subxaana wa tacaala iyo maalinta qiyaamaha rajaynaysa ee damac kaga jiro ee ilaahay xusaysa subxaana wa tacaala. waxaan ku soo koobaya oo ilaahay inooga digaya walaa tattabic ahwaa'ahum camaa jaa'aka min alxaq. ilaahay wuxuu inooga digayaa dadka gaaleed hawadooda inaynu raacno inagoo ka tegayna xaqii alla soo dejiyey subxaana wa tacaala. waxaan ku soo koobayaa marka oo warkaygoo dhammi yahay idinkaa aad tusaalihii la rabay in lagu dayda idinku cid idinka liidata ha ku dayanina. cid idinka liidata ha ku dayanina. ha laydinkaga daydo laakiin islaamnimo dhaba ma aha in marada qura laydinkaga daydo, waa in dhaqan oo dhan laydinkaga dayda. dad run sheegaya oo run ku dhaqmaya oo deeq iyo waxbixin leh oo ballan oofinaya oo hoom weegiisa ka shaqaynaya oo macallinkiisa ixtiraamaya oo dariskiisa dhiganaya oo wixii loo diro si toosan u qabanaya oo qumman in lagaaga daydabaa muhiima. markaasaa tusaalii dhabtaa noqonaysa. laakiin haddaad xaggana mara ka qaadato kalaaskana aad jirtid, macallinkana been u sheegtid, saaxiibkaana wixiisa aad ka qaadatid, kanna aad dulmidid, markaa tusaale noqon maysid. tusaale waxaa tahay waxa meesha lagu hayo marka aad ka tahay qofkii laga rabay. hadday waxbarashatay, hadday dhaqantay, hadday ballan tahay, hadday hadaltay iyo run la sheegayo, qof street forward markaad noqoto, qof toos u socda. moodhalka la raba islaamigiina waa kaa. walidaalika baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inooga digayaa inaynan odhanin lima taquuluuna maa laa tafcaluuna kabura maqtan cinda allahi an taquuluu maa laa tafcaluun. inaynan bad example ka noqonin diinta. waxaan aad uga cabsi qabaa inaynu inagu dadka diinta ka celinno oo nidhaahna ha soo gelina. waayo diintu hadday innaga ina anfici weydo war idinkeeda anfacaysaa soo gala say suurtagal u tahy. waa in dadka diinta aynuugu yeedhayna ay noqoto dhaqankeennu inuu dadka dacwo gaadhsiinayo. waa laga yaabaa afafku inaynuguba adag yihin, inaynan si fiican ba isu fahmin, laakiin kaljarkaaga iyo dhaqankaagaa yeedhaya haddaad adigu qof quman tahay. meeshaad ka shaqayso, meeshaad wax ka baranayso, meesha aad joogto, cidda aad la saaxiibka tahay, markaad si quman ula dhaqanto, qumanaantaadan baa dacwada sheegaysa warkaaleya ilaahay rumeeya. ha noqonina markaasi diinta kuwii dadka ka celiya oo bad examples ha noqonina. tusaale xun oo dadka diinta ka celiya ha noqonina, ee waxaad noqotaan tusaale fiican oo dadka diinta u soo haga. waxaad noqotaan dadkii mujtamaca kani u idin wanaajiyey. norwijigu saacinkaa maaha, waayo hoy baa laydin siiyey, waxa cuntaanna waa laydin siiyey, waxbarashana waa laydiin ogolaaday, intay doontaba ha noqotee. idan waa inaynu ka abaalgudnaynana wixii wanaagsanaa aynu sidnay inaynu siinno. diin baynu sidnay, islaamnimaynu sidnay, dhaqan fiican baynu sidnay, wixii wanaagsanaaye aynu sidnaynana waa inaynu siinnaa. oo man lam yashkur innaasa lam yashkur illaah.
waynaynu dadka u mahad celinaa laakiin mahad celku maaha inaynu inana barro sida sistamkooda loo buriyo sida loo xado sida been loo sheego sida wax laysu weydaariyo kaa maaha waa inaynu ugundamkooda hanuunin karnaa iyagu maanta ugundamkoodii way u taaglaayeen sigaar iyo khamri iyo suuq iyo baliya baas iyo waa in iskuulka 5 hablood ama 5 wiil oo muslima ay degan yihiin waa in iskuulkan dhaqankiisa bedelaan waa in iskuulkani noqdaa model la yidhaahdo markaasi waxaa loo baahan yahay in dadka ajanabiga muslimiinta iskuullada lagu badiyo loo qaybiyo waa inay noqotaa waayo waa model iskuulka wax taraya laakiin haddaad noqotaan intaa meel ku ururtaan iskuulkaa joogtaan inuu aqoonta ka hooseeyo iskuullada kale oo dhaqanka ka sii liito oo waxbarashada ka sii liito oo damiinnimada ka sii liito meel kasta u sii fool xumaataan markaa islaamka aad ceebaynaysaa weeye waxaa la rabay meeshaa 5 ku joogtaan ama 10 ku joogtaan inaad noqotaan 10 example oo dadka kale raadiyaan 10 kanoo kale in la helo iskuullada kale inay u baahdaan markaasi waxaanu u baahannay 10 arday oo muslima in iskuulkan lagu soo daro si iskuulku uu hagaagi karo u toosi karo waxaynu markaa isugu nimi waxa weeyaan inaynu modelkaasi muujin karno ku dayashadaas inaynu muujin karno in maanta laga bilaabo aad garataan inay idinku tihiin dadkii lagu dayan lahaa inventionka dadka u keeni lahaydeen idinkaa laydinka rabaa markaa maanta laga bilaabo idinkaa aad dadku ku dayan lahaa markaa idinkaa laydin rabaa inaad noqotaan dad mujtamaca hogaamin kara oo waxa ay xambaarsan yihiin u gudbin kara oo aadoon af uga gudbin dhaqankaaga iyo akhlaaqdaada iyo qaab nololeedkaaga waa inuu gudbiyaa sharkoodana waa inaad isku daydaa inaad iska cadaadiso khayrkaaguna waa inaad isku daydaa inuu dadka wada gaadhi karo markaasaad noqonaysaa qofkii muslimka ee dhabta ahaa ee ilaahay iyo rasuulkiisuba ay jeclaayeen markaasaad noqonaysaa qofkii muslimka ee badbaadin lahaa ummadatan dariiqa saxa u tilmaami lahaa markaasaad noqonaysaa qofkii muslimka ahaa ee safiirka ka noqon lahaa ummadda muslimiinta kale yani inaad safiir ka noqoto ummadda muslimiinta kale baa loo baahan yahay ama maanta in badan oo muslimiinta ka midi qaabkay uga dhaqmaan halka kani waa very bad examples bay ka yihiin muslimkii ka dambeeyey oo dhan iyo diinta ay xambaarsanaayeen iyo culturekood iyo dhaqankood iyo aragtidoodiiba very bad examples bay ka yihiin waxaan ku soo koobayaa markaa dad ba idinkaa u fiican ha jabina uun yani dad ba idinkaa u fiican intaad muslim tihiin laakiin cuqdadana infan dareera baanahay iyo kan baanahay iyo minority baanahay iyo waa lay xaqiraya waa la yasayada ka baxa infan dareeraa tahay muslima baa tahay hogaamiye baa tahay waxyigii samada sida baa tahay qofkii la rabay dadku inuu ku dayda baa tahay daadis waxaa la rabaa inay adiga kaa dhaadhacdo haddaanay de adigaba kaa dhaadhacsanayn dadkama dhaadhicin kartid laakiin adigaan rabaa inay kaa dhaadhacdo inaad tahay infan dareere muslim ah oo kii siday waxyigii cirka laga soo diray ee bini aadanba inuu ku hanuuno loogu talagalay kii siday baa tahay then you should be a good example asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu السلام ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى أول مرة يشتكينا محاضرة قيمة. waxaa runtii u baahan inuu qofka muslimkii marka hore ogaado roolkaad nolosha ku leedahay waa maxay ma inaad cayaartaabaa dunida u timi yani maxaad u nooshahay qofku hadduu garan waayo wuxuu u nool yahay dan waxaad qabataba garan maysid sheekh zandani la yidhaha cabdilmajiid zandani xafidahullah ayaa maalmaha ka mida isagoo la hadlaya nin brofessor oo ingiriis oo caana ayuu wuxuu weydiiyey war ishu maxay tartaa buu ku yidhi markaasuu yidhi ishu waxan bay qabataa saan bay qabataa wixii buu sharxay human physiologyga wixii lagu sharxi jiray ama human anatomy ayuu sharxay markaasuu haddana cudwi kala weydiiyey halkani maxay qabataa wadnu muxuu taraa kani muxuu taraa markii dambe wuxuu yidhi cilmiga kan cilmi alwadaaif alacdaa baa la yidhaahdaayo wuu sharxay wax waliba waxan bay qabtaan saan bay taraan wuxuu weydiiyey waxaad ii sheegtay jidhkaaga shay kasta oo ka midii waxa uu taro ma shaynimadiisuu qiimo ku leeyahy mise jidhku waxu taraa baan ku weydiinayaa buu yidhi
deetana wuxuu yidhi ishu hadday keliyo meel taallo waxba faa'iido ma laha buu yidhi waxay waxtar tahay markay dee jidh ku jirto oo jidhkay wax u taraysaa ku arkaya waxaan ku weydiiye buu ku yidhi qofka oo dhan markaad jidhkiisi iyo ishiisi iyo wixiisiiba isku darto waa maxay isaga waxa loogu talagalay sheegtay ishii wixii loogu talagalay dhegtii sheegtay lugtii sheegtay qofkoo isku dhan maxaa loogu talagalay iska aamusa wuxuu yidhi dee taasi waa falsafad wuxuu yidhi waxaan ku weydiiyo kabtaadu maxay kuu dartaa kabtii buu sharxay wuxuu yidhi waxan bay qabataa dhibta iga ilaalisaa saatan baan ugu socdaa caynkan bay qabataa kabtii buu sharxay markaasuu wuxuu ku yidhi waxaan ku weydiiyo ma waxaad leedahay iminka kabtaadaa kaa qiimo badanoo kabtaadu waxay tartana waa la garanaya adigu waxaa tartana cidi garan mayso yani waxa lagu abuuray adiga cidi garan maysa miya kabtaadan waxa loo sameeyeyna waad garanaysaa miya yacni qofka haddii hadafka nolosha uu ka lumo waxa ka lumaya wuxuu qaban lahaayoo dhan noloshoo dhan baa dhinac ka rarmaysa markaa yacni waxay isweydiinta le war maxaad u nooshay inaad isweydiiso wakhti yar baad horta haysataa 60 sano 70 sano meelaha kan laga yaabo 15 hore inaad carruur tahay waa un wax kontaneeyo sanaa baad haysataa this 50 years nolosha maxaad ka qaban kartaa inaad isweydiiso kontonkaaga sana ma waxaad doonaysaa inaad boodboodo markaad kubaddu unu cayaarto u noolaato kubadda waxaan kuu ogolay inay noqoto waxaad jidhkaaga ku kala bixiso oo aad exercise ka dhigato laakiin maaha wax loo noolaado in kubad la cayaara laba ma kala fahmaysaa maalan maamaada ingiriisku maxay odhan jirtay waxa wax loo cunaa maxay in la noolaado laakiin looma noolaado in maxay in wax la cuno socaynkaa maaha cunadu faa'iiday leedo waxaad wax u cunaysaa inaad ku noolaato laakiin ka warran qofka u nool inuu wax cuno uun noloshiisaba ka dhigtaa inuu wax daaqo oo wax cuno uunoo fadhiyo nolol maaha dee taasi waxa wax loo cayaaraa inaad jidhkaaga dhisto laakiin haddaad u noolaato inaad cayaarto ka warran haddaad u noolaato un inaad cayaarto oo kubadda erido cayaartu hadday tay taa aad isku kala bixbixinaysa jidhkaaga ku dhisanayso waa roonti ama inaad noloshaada ka dhigta cayaar kugulama talinayo wallahu aclam salaadii muhiimadeeda waxaan u malaynaya in deris ku saabsan uu jiro marka salaadda in marmar la tukadayo in laga tago waxaan uga tegayaa sheekh cali maadaama deris salaadda uu kaga hadlayo cumuuman waxaad ogsoonaataa muslim macnihiisu waa maxay yaa garanaya muslim aslama waa hoggaansamay ama waa isdhiibay muslim macnaheed waxa weeyaan kii alle isu dhiibay kii hoggaansamay inaad alle isu dhiibtay maxaa caddaynaya waxaad tidhi ilaah halka ugu fiican baan ogolay inaan maalintii 5 jeer dhulka dhigo madaxaad dhulka dhigtaa salaaddu soo maaha madaxu waa halka aanad ogolayn in saxar yari taabto subaxii markaad soo baxayso waxaad ogoshay inaad maydho oo hagaajiso oo dhowr muraayadood isku eegto adigoo okay ah inaad dabad u baxdo laakiin salaadda waxaad ogoshay halkaa inaad dhulka dhigto itmiinis waxaad leedahay waxaan aqbalay inaan hoggaansanaado qofka muslimkii markaasi waa inuu si dhaba u hoggaansanaada hadii waaxida salaadaada haddaad meel qarsoon ku tukato horta dee salaaddii waa saxaysaa intaad tukanaysana muslim khayr badan baad laakiin waxaan jeclay waxay tahay inaad adigu hormood noqoto miaal haddii guruub aad tihiin meel jooga oo macallinkiinna ama iskuulka rektarka haystaa u tagtaan oo aad tidhaahdaan gruubkan muslimiin baannay meelaannu ku tukanno nadiifaannu u baahannay hana la siiyo waxay u badan tahay in laydin siin doono waxaa laga yaabaa inaanay qaanuunka ku jirin laakiin basharka iyo qaanuunku waa kala nooc rektar walba iyo macallin kastaaba shakhsiyaddiisu leeyahay dadnimadiisa waa laga yaabaa kani inuu kuu diido laakiin ka kale inuu idiin ogolaadabay u badantay waxaa jira maanta iskuulla le meel lagu tukado ma dowladdaa tidhi ha la siiyo iskuulkaa meel lagaga tukado maya ardadii koowaad baa isxilqaamtay oo intay u tagtay rektarkoodii iyo macallimiintoodii si loojika ula hadashay oo ka dhaadhacsatay in la siiyo meelay ku tukadaan oo macallin fiicanina wuu helay dadka dee badh baa isagoo aan muslim ahayn haddana dadnimadiisu fiicantay abi aalib muslimna ma ahayn nebi maxamed in la dhibana ma ogolayn muslimna ma ahayn yacnii isagoo gaala dad baan haddana rabin bini aadamka in la dhibo
raktarkaaga ama macallinkaagu inuu noocan noqdo waa suurtagal wuu siiyey ilaa maanta waa fatxi ay dadka muslimiinta heleen haddaad laakiin weligaa meel madow ku tukato kii kaa dambeeyun bay dhibtiina u taagan tahay laakiin tobankiina hore haddaa culays kaa qaadaan wuxuu noqonayaa albaab la baneeyey muslimiinta dambe waxay imanaysaa iyagoo iska meeshii ugu sallaxan tahay oo meel ku tukadaan helaya oo iskuulkan islaamkaba laga ogolayo laakiin si islaamka iskuulka looga aqbalo waa inaad noqotaa islaamku dayasho leh islaam iskuulka wax taraya waa inaad noqotaa islaam sigaar aan cabbin khamre cabbin boodboodin qaylin macallimiinta caayin ixtiraam xumayn dadku ay soo dhoweeyeen waa inaad noqotaa islaam moo dhalo macallimiintu ay soo dhowaystaan oo markuu macallinku arko kalaaskiisa dhowr muslim oo fadhiyo uu ku farxo waayo ungdamka kale waa rabshad iyo dhibaato miidhan laakiin ungdam muslim oo degan markuu helo macallinku waa bashar wuu kugu farxaya inuu ku arko inaad tahay qof qumanoo toosan oo aan dhib lahayn inaad tahay marka waxaan leeyahay salaada dadka muslimiinta ha tukadaan oo ay ka tageen waxay ahmiyad leedayna sheekha ka warramay doona meesha madowna waa ku asaxaysaa insha Allah adiga Allah waa ka aqbalaya laakiin waxa aan ka rabaa waxa weeyaan inay salaadu ka asaxdo qura inaad raadisay inaad qudwo noqoto nabiguna wuxuu yiri man sanna sunnatan hasana fil islam fala wajru man amila biha ninka dariiq wanaagsan dadka u jideeya buu nabigu yiri qofka dariiq suuban isagu jideeya ajarkiisina wuu leeyahay ciddii ku camal fashay ajarkooda oo dhanna waad leedahay haddaad adigu iskuulka u horseeday in masaajid yar leedsiya ama meel yaroo fiican oo lagu tukado waxa ay noqonaysaa inaad yeelato inta muslimee meeshaa salaadii u fududaatay ku tukatay oo dhan ajarkoodana inaad yeelato mid kalena waan kuu sheegayaa dadku isma leeka qoladiina hore xoogani haddaa wadada bannaysaan kuwa iska daciif ahayoo salaada qarqarsan lahaaba iyana soo dhiiranaya qaar u taagalaydeen baa imanayo markii hore aan qarsan karaynin laakiin markaa meel u sallaxdeen oo hagaajiseen qaar badan oo markii hore la baqayay baa odhanaya wallahi de salaad waa iska fiicanta waa la ogolay iskuulka oo idinku dayan doona ta kale waxa aan rabaa inanta kale kalaaska kugula jirtay Norweejiyada aan muslimka ahayn inay ku aragto adigoo tukanayaan rabaa waayo waa dacwa inay ku aragto adigoo tukanayaan rabaa inay curiosity ku qaado ay ku weydiisana maxaad la forforsanaysaa baan rabaa iyadu su'aashu ay ka bilaabanto nin muslim oo madow oo taksiila ah Mareykanka ayaa wuxuu yiri 6 bilood gudahood baan 58 qof islaamiyay buu yiri taksiga gudihiisa ana shahaada ugu qabtay buu yiri 58 qof ayaan taksiga gudihiisa shahaada ugu qabtay buu leeyahay maxaad ku samaysaa baa la yiri dadka wuxuu yiri airport kan dhigtaa taksiga marka dadku soo fuulun bal ajlad quraana ku rida kala Yurub waliba Scandinavia ku dad yara xidhan laakiin North America iyo meelahaas wadadaad isaga furfuran ajlad quraanan galiya buu yiri waxay yiraahdaan waxaan fiican heesaya muxuu yahay markaasaan idhaahdaa buu yiri waa the last word ka timaada xagga Rabbi halkaasaan ka bilaabdaa buu yiri sharaxayga waayo qofkan wuxuu raboon albaabka cid u furta si uu la hadlo oo diin uga hadlo laakiin wuu ka cabsanay inuu marka horeba ku bilaabo diin ma haysataa iyo islaamka maxaad ka qabtaa inuu halka ka bilaabo uu diidana ajlada uma saaraa buu yiri iyaga curious noqdo su'aashay weydiiya anna markaasaan ku bilaabaa buu leeyahay idan waxaan rabaa intaad salaada tukato inay inta Norweejiyada ku aragto ku tiraahdo maxaad sameeynaysaa dabeetana tiraahdo tan salaad baa la yiraahdaa oo ilaahay baa la isugu dhiiba waa caynkaas oo halka uga sharaxdaa baan rabaa saadaradeed waxaan rabaa salaadaadu inay tusaale noqoto dadka diinta ugu yeedhaysa laakiin meel mid dadku tukato waa ka asaxaysa wallahu aalam كلام قرأوا وحي سؤالي ديمقراطية وسؤال رنتي مدولي بدرس كذا استقباري ديمقراسي وكلمة لبا كلمة دودو أف غريقة ككوبا ودي أف عربي لغو معنى يلا مدى حكم الشعب أف صومالي نما لا شعبي حكم كبد سودة إنه استعمال لهم حكم كي شعبك أما حكم كي ددوينه لكن وحي هذان بروفيسور مسلم والله يراهدو جعفر إدريس ayaa wuxuu yiraahdaa waa ereyga kaliya ee magac aan xaqiiqo lahayn buu yiraahdaa yani waa magac aan xaqiiqo lahayn waayo dunida lama arag buu yidhi meel shacab dhami wax xukumo ma jiro
calaa kulli xaal waa nidaamkaasi ku salaysan waa nidaam siyaasiya siduu hadda u yaallo ee dunidu isaga dhaadhicisay arkaan ay ka tahay in la kala saaro saddexda suldadood ama saddexda maamul ee ah suldada qadaaga ama judishariga ama qolada maxkamaduhu ay gaar noqdaan suldada tashriica waxa u yaqaanin ama barlamentarianku uu gaar noqdo iyo sultada dowladnimo ama xukuumadda wasiirada iyo ra'iisul wasaare iyo waxay la nooca ay gaar noqdaan maanta nidaamka dunidu qaabku u yaallo waxay yidhahdaan dimuqraadiyadda saddex qaybood baa loo qaybiyaa midi dunida kama jirto oo waa tii erayga dhabta ahaa uu sheegayey oo ah in shacabku ha xukumo athenis baa ugu dambaysay bay yidhaahdaan xataa athenis markay ka jirtay bay yidhahdaan may ahayn dimuqraadiyad waayo shacabka o dhan looma wada ogolayn dumarku kuma jiri jirin caruurtu kuma jirin addoomuhu kuma jirin citizenshipka rasmiga qofkaan lahayni kuma jirin waxay ahaayeen koox yaroo kooban oo filosofara iyo in dadoo la socotay kaa marka la soo dhaafo labada nooce kale ay leeday waa nooc la yidhahdo nidaam iljamciyaat hal dowlo oo qura dunida kaga dhaqanta switzerland waddanka la yidhahda weeyaan waa saddexdii suldadood oo koox qura isku wada hayso oo ah baarlamanka ayaa qudaaduna ka tirsan yihiin madaxweynuhuna ka tirsan yahay wuxoo dhammiba koox qura ku soo ururta deetana nidaam iljamciyaat nidaam la yidhahdo uu si kala daadegaa qaybteeda kale waa qaybtan loo yaqaano barlamentarianka oo iyana laba qaybood u qaybsanta qayb barlamentarian qayb ra'aasiya ama qaybtan baarlamaan la doorto baarlamaanku ra'iisul wasaaraha doorto iyo qayb madaxweynaha toos loo doorto ta Mareykanka ah isku soo duuduub waa nidaam ku salaysan midka u fiirso xaq iyo baatil ma yaqaano cod dheeri buu yaqaanaa wanaag iyo sama ma yaqaano cod dheeri buu yaqaanaa waa maxay taa macnaheedu wuxuu xataa hadduu xun yahay oo uu cod dheeri haysto waa xalaal hadduu san yahay oo aanu cod dheeri haysanin waa xaaraam eraygaa ma fahmi karaysaa maalan khamrigu waa maxay cid tidhaahda wanaagsan yahay maa jiro dunida ku nool maya laakiin cod dheeri buu haystaa inuu xalaal yahay baarlamaanku ma mamnuuci karayo homosexualku miyuu fiican yahay homofiilku cid ammaantaa ma jirto laakiin hadduu cod dheeri haysto isagaa soconaya idan markii yurub diimuhu ay tiro bateen ee afkaartii tiro badatay ee wax waliba tiro badatay qaab ay u wada noolaadaan waxay u doorbideen inuu noqdo cod dheeridayaa leh dabeetana ciddii 51% heshaan inay meesha maamusho islaamnimadu kaaway ka gedisantay islaamnimadu waa waxyu samaa alla soo dejiyey laakiin haddaad si kale u egto waa doodi karnaa oo iyagu wax dastoor la yidhahdo 2/3 marka hore ay ku dejiyeen oo aan saqafo laga bixi karin xataa kaa haddii laysla dhaafo liberalismka oo caqiida la rumaysay oo aan marnaba laga bixi karin se iyagu rumaysayin ayuu hoos yimaadaa innaguna waxaan leenahay saqaf baynu hoos nimaadnaa alkitaab wa sunna aan marnaba laga bixi karin wixii ka hooseeya markaa waa la dooran karaa haddii saqafkaasi uu nabad galo idan waa laba nidaam oo meelana isugu iman kara meelana ku kala gedisnaan kara dimuqraadiyaddu qaarna way dhaantaa iyadana islaamka ka fiican wallahu aclam labadan qaybood kale masiixu dajaal iyo masiixu ibnu maryam labadaba waa noqon karaa ala kulli xaal ciisa almasiixna waa la yidhaahdaa dajaalkiina masiix waa yahay wixii intaa ka faahfaahsanna mar kale aynu isweydiin ikhtilaadku rag iyo dumarka in la isku daraa ma fiicna daad ka guuri karto ka guur daad ku qasbantayna kursigaaga durugso wallahu aclam